6 mudane oo saaka xaadir ku ahaa xarunta golaha guurtida Somaliland ayaa muddo 2 sanadood u kordhiyay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi taasi oo ka dhigan in madaxweyne Biixi xilka sii hayn doono ilaa laga gaadho 13 bisha 12 ee 2024 xilligaasi oo la filayo inay dalka ka dhacdo doorashada madaxtooyadu mudane Biixi ayaa muddo leedkiisu ku eega 13 Noofambar ee sanadkan 2022 sida oo kale golaha aan dhicin guurtida ayaa iyaguna yiri ha inaga reebina oo isugu daray muddo xileedkooda aan la aqoonin goorta uu dhamaanayo 5 sanadood taasi oo ay sii fadhiyi doonaan ilaa 2027 muddo xileedkii madaxweynaha oo dhamaaday in markaa muddo xileed la kordhiyo laba golaha guurtida isla muddo xileedkiisii wuu dhamaaday wuu dhamaanayaa wax yar baa ka hadhay inaynu iyadana madaxweynuhu soo qoray codsigii kordhintee labadaba iyadana waynoo codaynay waayahay توجيهنا انت قولك عنك قضية الدواتر من واجبك أنا ما أعمل وعملنا توجيهنا أيها الله بدون الحلول انت قولك عنك Somaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ka taagnaa muran siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashooyinka kaasi oo xataa la isla soo dhaafay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka iyadoo xaalku u gaadhay xildhibaano kala qaybsan iyo xeer dibadyaala oo banaanka ku qoyay isaga iyo kartoonkii lagu deyriyayba golihii shacabku doortay ee wakiilada Somaliland ayaa u xidhnaa maalmihii u dambeeyay kala qaybsanaan u dhaxaysay xildhibaanada dibadjooga ee taabacsan xukuumadda iyo in ururada la furo iyo xildhibaanadii sidii degdeg ahayd u ansixiyay xeerkii uu golaha guurtidu ku soo celiyay golaha wakiilada waxaana xusid mudan in 46 xildhibaan oo kamida golaha wakiilada Somaliland ay gudoomiyaha guurtida Somaliland u gudbiyeen dacwad ka dhan ah labadii xeer ee ansixiyeen qayb kamida saaxiibadooda golaha wakiiladu mudanayaasha dibadjooga ee diidan golaha wakiiladu inuu furmo ayaa ku doodayay in wax qaldani uu ka dhacay golaha iyadoo sharcigana ay sheegeen in la baalmaray muranka iyo khilaafka ayaa ka dhashay kadib markii golaha wakiilada Somaliland 19 bishan ay ansixiyeen wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay xeerka guud ee doorashooyinka iyo xeerka ururada ee xeer number 14 nuxurka wax ka bedelka ayaa ahaa in golahu meel mariyay doorashadiisa saara taasi oo ay sheegeen inay ka qabsoomi doonto dalka hase yeeshee muddo xileedka haatan loo kordhiyay madaxweynaha Somaliland ayaan ahayn markii uu horeysay ee xilka loo kordhiyo madaxweyne Somaliland iyadoo dhammaanba xilka loo kordhiyay madaxweynayaashii soo maray Somaliland